السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كسر هذا سومالي تكنولوجي ما أنتوا واحد شرح يا نتورك أوكي نتورك ديفايس كا أما ديفايس كلا دون النتورك أيان شرح يا لكن عشرة وحن بلا بدون تحنا وتوتوريال لو يقانو أو كالي نتورك سيب CCN هذا مرك إن شاء الله هداد بهانتين وسوق أصلا كنا نغيب كومنتيك يوشجع وبلا يا هداد مركز عدو بهانتين لكن ما أنتوا شرح يا نتورك ديفايس كذا كلا دون يقابكو إيش قيس النتورك أوكي ما أدري توحن كهذا السيستم كاس يا كمبيوتر كلاينت يا مش سيرفر ماشين كأيان كهذا maanta network okay marka kan waxa loo yaqaanaa router wax ka wada switch weeyaan okay marka shaqada switch waxa weeyaan in network qaybiyo kaliya okay waa aragtaan networkska computerada dhan ayaa ku wada xiran marka kan wuxuu leeyahay 424 wuxuu leeyahay port koronto ayuu leeyahay marka 424 wuxuu leeyahay port oo internet ports ah marka 424 machine ayaa hal mar ku wada xirmi kara oo markaas network ka qaadanaya switch kan marka switch shaqadiisu waxa weeyaan inuu network isku mid same network uu marka qaybiyo okay waa sida qaybsado kala baraysada oo ay leedahay dhowr iyo toban good oo markaas dhowr iyo toban telephone ama dhowr iyo toban computer laga charge garaysan karo isku mar okay marka switch waxa shaqadiisu waxa weeyaan inuu network isku mid ah uu markaas uu qaybiyo okay oo markaas computer badan ama device fara badan ay ku xirmi karaan internet port ayagoo isticmaalaya okay marka kor ayaan aadaynaa halkan waxa weeyaan waa switch weeyaan switch kana shaqadiisu waxa weeyaan inuu laba network oo kala duwan isku xiro okay laba network oo kala duwan ayuu isku xirayaa waxa kooda kan waa routerku wuxuu isku xirayaa laba network oo kala duwan switch waxaan niri network isku mid ah ayuu qaybiyaa routerkana wuxuu isku xiraa laba network oo kala duwan hadda waa aragtaan fiiladani hoos ayay aadaa waxay ku xirantaa switchka say networka ay switchka u siiso fiiladan kalena kor ayay aadaa waxay network ka keentaa modemtan ayay network soo qaadaa okay marka modemtana internet waxay ka keentaa ISP provider ama shirkadda markaas internetka na siinaysa okay marka fiiladan waxa weeyaan waa fiber optic weeyaan waa fiilada marka internetka keenaysa okay marka shirkadda internetka marka na siinaysa fiiladan ayay noo keentay dabeeta modemtan ayay meesha dhigatay oo fiilada ku xariirtay marka anaguna fiilada ayaa modemta ka soo xariirsanay oo markaas ayaan routerkeena ku xariirsan marka routerku wuxuu isku xirayaa internetkii oo shirkadda internetka na siinaysay ah iyo networkii company-ga oo hoos aada okay marka routerku wuxuu isku xiraa laba network oo kala duwan ayuu isku xiraa okay marka tan waa modem sidoo kale waxaa la oran karaa gateway okay marka hore modemta aan sharaxno modemtu waxay isku xirtaa shirkadda marka internetka bixinaysa oo loo yaqaan ISP provider iyo marka company-ga internetka shirkadda ka qaadanaya ay isku xidhaa oo dhexda ay u fariistaa marka shirkadda internetka marka bixinaysa oo ISP provider loo yaqaano modemta ay fiiladeeda ka shataa dabeeta modemta ay manage garaysaa dabeeta company-ga markaas internetka la siinayana router ayuu leeyahay oo markaas uu modemta asna sii kashado okay marka modemta waxay leedahay laba good oo ah godka shirkadda bixinaysa internetka godkaas ah iyo godka company-ga uu kashanayo fiilada internetka company-ga markaas siinaysa okay haddaan niraahno kan tan waxa weeyaan gateway waa markaan device ayaan ka hadlaynaa okay device ayaan ka hadlaynaa marka gateway waxa weeyaan modem iyo router la isku daray ayaa waxa loo yaqaanaa gateway device ayaa loo yaqaanaa okay marka device-an oo xoogaa weyn oo leh ugu yaraan 3 portskan oo kala ah ayaa waxa loo yaqaanaa gateway okay marka gateway waxa weeyaan router iyo modem la isku daray weeyaan okay marka hadii la yiraahdo gateway-ga laga hadlo oo port ahaan wuxuu noqonaysaa network-an ka imaanaysa company-gan network company ka imaanaysa waxa gateway u noqonaya portskan okay portskan waxa weeyaan waa gateway waa meeshii internetka meeshii internetka laga aaday kor ayay aadaysaa waa gateway wixii hoos ka xigana waxa weeyaan gateway ma ahan okay marka waa aragtaan device-ka network kala duwan insha Allah waxaan maleynayaa inaad fahanteen farqiga u dhaxeeya router modem iyo switch okay marka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa haddaad u baahan tihiin casharadan oo xiriira oo network markaas aan sharaxayo details ah commentiga hoose nagu reeb soo codso insha Allah hadda codsigiinu markaas uu bato waa bilaabi doona waqti ayaa idin siinayaa inaan cashar idin duubo ka hadlaya network siiba CCN-da intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh